nin saxaabada ka mid oo la oran jiray Amr ibn al-Aas ayaa wuxuu intuu noolaa caafimaadka qabay soconayay wuxuu jeclaa oo ka sheekeyn jiray inuu mar uun arko qof naftu ka baxayso oo waraysto bal sakaraadku sida uu yahay xaalkiisu cishadii dambaa isagu sakaraadkii qabtay xadiiska fi sahih muslim dabeetana inankiisa Abdulaahi oo ag fadhiya ku yir aabow waa adigii oran jiray waxaan jeclaan lahaa qof uu naf baxaya oo sakaraadku ku soo xaadiray inaan weydiiyo iraahdo see sakaraadku yahay bal iiga waran maanta adigii baa sakaraadku ku hayaaye aabow iiga waran sakaraadka markaas wuxuu yiri hadaan kaaga waramo horta waxaad moodaa inaan neefta iga soo baxaysa sankayga irbad daloolkeed inaan ka neefsanayaad moodaa see naqasku ii hayo iyo neeftu ii hayso irbad daloolkeed wax yar Soomaa irbad daloolkeed in neefta aan ka qaadanayaad moodaa see neeftu ii hayso xaga kale waxaad moodaa dhinaca aan dhulka ku hayo dhamac daba oo dhuxulo cadaaday inaan ku jiifaad moodaa bir dhamac daba oo dhuxulo cadaaday ah in dhinaca aan ku hayo aan ku jiifaad moodaa awood aan isaga rogi karana aanan haynin waxaan se ku leeyahay jirkayga tin iyo cirib saasa la ii xulayaayo nafti leega soo saaraya waxaan se ku leeyahay haday naftu iga baxdo oo ay tan noqoto tii u dambeysay waqtigayga meydkayga si fiican ha loo diyaariyo si fiican ha lay kanfo salaada si fiican ha laygu tukado marka meydka la qaadayo ee la wado yaan wax dab ah dab qaadiyo iyo waxyaabo qiiqa iyo waxa ayaan lay raacinin xabaasha marka la geeyay lay aaso dadku ay dareeraan hayga tagin idul joog inta neef geela laga qalo oo hilibkiisa laga haraga laga saaro oo cadkiisa la googooyo oo la qaybiyo waqti inta leeg ila joog aan ku weheshade su'aasha igu bilaabmaysay markaas marka yaani waxa weyn qofku sakaraadka iyo geeridu aakhiru zamanka horta wuxuu nabigu sheegay mawtul fajaa badanaya geeri lama filaanka qofku mar qura wadnaha istaagaya waa lagu soo boodaya wax yar baa ku dhacaya waxyaaba aakhir zamaanku dadku aad u laynaya mawtul fajaa kamida nabigana ilaahay uu ka migan gali jiray subhanahu wa ta'ala sakaraadku marka waa lama huraan qofku inuu sakaraado rasuulku sallallahu alayhi wasallam markuu sakaraaday لا إله إلا الله إن للموت لسكرات لا إله إلا الله سكرات كي جيريدو حنون بيلاده النبي صلى الله عليه وسلم حنون بيلاده والنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم مركاسا مرada gooyuhu wana saasu isu saara markuu ku caburana uu iska qaada nabiga sallallahu alayhi wasallam isagoo saa u dhididaya uu leeyahay la ilaha illa allah inna lil maut lasakarat ilaahay ba allah xaq lagu caabudo ma jiro aan allah ahayn الله سبحانه وتعالى وكلغي عباده حقا متيستا geeridu xanuun badana oo nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam marka maxaad u malinaysaa arintaas yani saalan ma weeyaan wa meel u baahan intaan inagu soo xaadirin ina u shaqeysano oo u diyaar garowno wuxuu yiri sheekhu wastakhraja ar-ruh wastakhraja وصاريا الروح دي بصاريا مني anigu iga saaraya fi taqarquriha halka dhuunta iyadoo ka qarara عليه oo jibaadkeedu baxayo iga saaraya wasaara wuxuu noqday riiqi canuuftayda afkayga ku jirta mariiran mid kharaad buu noqday canuuftii way isbedeshay xiina qarqarani markuu nafta halka dhuunta ah ee qarqarada ee laga jibaadayo uu iga saaray waqamaduni nafti iga baxday buu waqamaduni indhaha isugu kaylaabeen oo indhaha isugu jabiya meedka la yiraahdaa waraaxa waa tagay alkullu dhamaan dadkii dul tubnaa odaygi waa sakaraadaya waa hebel waa caynkan heblaaya waa tabcaan wixii aqalka tuumnaaye joogay waa kala nafti ma ka baxday ha samariya iimaan qof walba dib u noqday wansarafuni wayga gadoomeen bacda al-iyasi quusasho kadib ay naftaydii iyo noloshaydii ka quusteen wajadu way dadaaleen intii hawsha u kacday fi shiraa'i al-kafani kafanta iibinteeda u kaceen hawsha waa dhamaatay ninka naf laga sugi maayo nafti baxday hadaba kafantii iyo qalqaaladii aaski way وقام وحا استاغي من روح با استاغي كان اها حب الناس dadka koloogu jecel yahay aha fi ajal si degdega warna kiciye meesha ayna fadhiisi soo hebel nafta kama bixin kafanti iyo aaski aan u kacno ninkii dadka aan soo jecelayn ama iigu jeclaa ama loogu jeclaa ayaa durtaba istaagay xaquu socda nahwa al-mughasili ki wax maydhay xaqiisu aaday yaatini suu iigu keeno oo yughassiluni ii maydho وقال وحو يري كا dadka loogu jecel yahay ya qawmi qawmkayow tolkayow
nabqii waxaanu doonaynaa ghaasilan mid maydha meydka baanu doonaynaa kaasoo xadiqan xariif ah oo dhug leh baan rabnaa xuran xur ahoo meydka wixii ceeb uu ku arkay qarinaya adiiban maskax badan ariiban caqli badan caarifan aqoon iyo cilmi leh fatinin fahmad badan baan u baahanay